Somali Kids TV. waxaa la rabaa inaan bisha ramadaanka ugu sii diyaar garowno inaan dembiyada iska dayno oon ilaahay toobad run ah u toobad keenno oo aan dembiyada dhan ka toobad keenno wixii naga dhacay oo dhan go-aanna qaadanno inaan mar kale dembi aan samaynin li'annahu bisha ramadaanka waa bishii toobada qofka aan ilaahay u toobad keenin oon kaga faa'iidaysanin inuu ilaahay u laabto dembi dhaafna weydiisto naftiisana tarbiyeeyo goormee buu ilaahay subxaanahu watacaala u toobad keeni karaa waa fursadda ugu fiican ee naf lagu tarbiyeeyo dunuubta iyo dembiyadii macaasidana looga baxo ilaahayna loo laabto si dadka ilaahay jecel yahay looga mid noqdo ilaahayna waa inagu baraarujiyey inaan ka faa'iidaysanno toobada oon ilaahay u laabanno watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun ilaahay wuxuu ina leeyahay toobad keena haddaad tihiin mu'miniin waa liibaanaysaane nabigeena sala allahu calayhi wasalam aad iyo aad ayuu u toobad badsan jiray inuu istikfaarta badsado waqti walba ayuu samayn jiray maxaa u malaynaysaa bisha ramadaanka dembigiisii horey dembigiisa dambe iyadoo la dhaafay buu nabiga sala allahu calay wasalam waqti ramadaan aan ahayn xitaa waqti walba buu istikfaarta badsan jiray sidee bay kula tahay bisha ramadaanka nabigu wuxuu ina leeyahay sala allahu calayhi wasalam yaa ayuha annaasu dadow tuubuu ila allahi wastakfiruuh ilaahay u toobadkeena dembi dhaafna ilaahay weydiista fa innii atuubu fi lyowmi 100 mara maalinkii 100 jeer baan ilaahay u toobad keenaa buu ina leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasalam ayadoo dembigiisii horey dembigiisii dambe la dhaafay aniga iyo adiga xaalkeena sidee buu noqonayaa waxaan u baahannahay in badan inaan toobad keenno ayaan u baahannahay